wuxuu ahaa nin ay familygayga ama ehelkayga ay saaxiib yihiin anigoo yar oo wax baranaya dalka Ingiriiska jooga ayaan bartay John Drysdale ama Abbas Idris wixii fariima ama warqada ee aabo Allah yarxamo iyo ehelku ii soo dirayo uu ii soo qaadi jiray wuu iwaanin jiray wax baro oran jiray wuxuu ahaa dadkii si weyn wax igala qabtay wax barashada jaceelkeeda wuxuu in badan ila qaybsan jiray waxyaabaha uu qorayo qoraabo ahaa markuu qoro maqaal ama uu wax doonayo inuu alifo wuxuu kelmadaha Soomaaliga abu i weydiin jiray oo aan u yara micnayn jiray hadii aan aqoon dhaamo John Drysdale ama Abbas wuxuu ahaa nin saxaafadda jecel Somaliland jecel ummadda jecel dalkan jecel anna waxaa sharaf ii ahayd in maalinta uu yara xanuunsado inaanu yara dhaqaalayno oonu yara daryeelo waxaanan ilaahay uga baryayaa nin saciima nin muslina nin Somalilandera ilaahay naxariis janno siiyo dalkii uu jeclaa in lagu aasana innaga sharaf bay inoo tahay ilaahay isagana ha u naxariisto innagana ilaahay ha inooga daba naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh